qofkaad ku aragto saddex dhaqan waa xaasid iskaga fogow waa kaaga digaya haddaad qofkaasi aadan ka fogaan noloshaadu faqri iyo shaqo la'aan iyo stress iyo xanuun joogto ah oo midba midka kale bedelayo ka suuli maysid sumba noloshaada ku lamaan saddexdan sifo qofka aad ku aragtid hadday saaxiibada yihiin iyo haddii qof kale uu yahayba ka gaabso shartoodan ilaahay ka magan gal waxaad samayn lahaydna waa kuu sheegaya waad uga badbaadaysid insha allahu tacaala qodobka koobaad waxa weeye qofkaasi in uu sheego nimcooyinkaada asagoon wax barakayna raacin haddii aad xoolo leedahay haddaad shaqo fiican haysatid haddaad reer fiican haysatid haddaad noloshaadu ku fiican tahay fiicnaashahadaas iyo nimcooyinkaadaas aad haysatid buu kaaga sheekeynaya oo sheegaya mana dhahaya allah ku barakayo ma sha Allah eray ka turjumaya barakayn iyo inuu raalli ka yahay ma ku darayo kaliya nimcooyinkaadu ka sheekeynaya waa xaasid weeye waxa dhibaya nimcooyinkaada weeye wuxuu qalbiga ka jecel yahay in ilaahay ka suuliyo qodobka labaad qofkaasi wax kasto aad isku daydo hadaf yani waa ka xumaanaya haddaad u soo bandhigtid tusaale kale saaxiibaatiin waxaa rabaa inaad sameeyo ma samayn kartid wuu ku niyad jabinaya ma samayn kartid ma tilaabo qaadi kartid haddaad damacdeena isku daydo inaad samaysidno yani wuxuu kugu sameynaya wax loo yaqaan ixbaad raja xumo hortaada dhigaya haddaad ku fashilantidna way waa waqtigayga waa sida rabi u leeyahay oo ku farxaya fashilkaada oo ku farxaya haddaad damacdeena hadaf yani hawl aad samaysidna aad kala tashitidna oo ka niyad jabinaya qodobka saddexaad ugu dambeeya waxa weeye in qofkaasi mar arkasta markaad la kulantid la fariisatid si kadiisa ama si kala ballan aad iskugu imaataan inaad dareentid xoogaa shucuur ahaan dareem ahaan murugo yani xoogaa stress yani walbahaar hal marna ma ahan laba jeer ma ahan saddex jeer ma ahan mar walba yani intaasoo jeer ay kugu soo noqotay oo qofka markaa la kulantid waa murugoynaysaa waad xanuunsanaysaa madaxa qac lagugu siinayaa adiga dhan waswaas baa kugu dhacaya waxbaa kaa khaldamaya waa isku dhex yaacaysa waa qof xaasida qofka tilmaamahan ku aragtid iska ilaali kana fogow kana duro see uga fogaadaa marka see iskaga ilaaliya awalan tashi aad la samayn jirtay marka hore waa inaad hadda kadib joojisaa aadan noloshaada kala tashan hadafyadaada noloshaad ka leedahay aad u sheegin markastoo aad aragtidna aad ilaahay ka magan gashid shartiisa oo tiraahdid a'uudu billahi min sharri hada sharka kan ilaa waan ka magan galay way sharta kan qofkan alla waan ka magan galay markastoo aad aragtidna qul a'uudu birabbil falaq aad carabka ku haysid iskana ururisid colaytan iyo nacayb iyo inaad fahamtayna aadan tusin oo marka cadawtinimadiisa sii siyaadaysa si yar oo maaragtay oga insaxaab ama oga bax yani sida hore ku ahaan shartiisana alla ka magan gal qul a'uudu birabbil falaqna ku haysa carabka waxaan kaloo walaalaha ugu geysiinayaa ee doonaya talooyinka qoyseed tala qoyseed haddaad u baahan tahay arrintuna ka qariban tahay tala cilaajin haddaad u baahan tahay iyo quraan saarid oo aad doonaysid labada maba kala haraan tala bixinta qoyseed iyo cilaajinta aad doonaysid taladaada cilaajin naftaada saad u daaweyn lahayd naftaada qalbiyan si macnawiyan si xisiyaba quraanka iyo aayaadka asmaada ilaahay saad ugu daaweyn lahayd haddaad doonaysid inaad macnaha arrintaasi taladeeda heshid lambarkan xafiiska aan maarinta u sameeyay kala soo xiriir insha Allah taala tala fiican oo haboon baad heli doontaa lambarka waa Kenya waa eber 7 waa 22 hal afar weey haddaad banaanka ama Kenya meel ka baxsan joogtidna furaha Kenya soo gelinaysa